ayadoo asbuuci la soo dhaafay ay heshiis wada gaareen madaxda Soomaaliya iyo Kenya ayaa shalay oo ahayd maalin Jimcaha dawladda Kenya bilowday inay shuruuc u samayso ganacsatada qaadka u dhoofinaya Soomaaliya kadib heshiis ay gaareen labada dawladood ee Soomaaliya iyo Kenya kadib markii dawladda Soomaaliya iyo Kenya ay ku heshiiyeen in dib loo nooleeyo xiriirka labada dal ayaa hadda la qorsheynayaa inuu si rasmi ah u bilowdo dhoofinta qaadka Miiraan inkastoo mar hore ay ahayd in dib loo bilaabo dhoofinta qaadka ayaa waxaa haddana dib u dhac ku yimid shatiga lagu xukumay ganacsatada qaadka u dhoofinaya Soomaaliya shalay oo ahayd maalin Jimcaha ay dawladda Kenya shaacisay inay bilaabayso bixinta shatiga dhoofinta Miirowga waa sida uu dhigayo xiriirka cusub ay gaareen labada dawladood ee kala ah Soomaaliya iyo Kenya iyadoo Kenya ay ku sii dhawaanayso inay dib u soo gasho suuqyada Soomaaliya muddo 3 sano kadib iibka Miirowga ee suuqyada Soomaaliya ayaa lagu heshiiyay inuu bilaabo 5 bishii Luulyo hase ahaatee waxaa dib u dhac xoogan ku yimaaday shati la'aanta ganacsatada la rabo inay qaadka u dhoofiyaan Soomaaliya dawladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaana kala saxiixdeen in ganacsatada qaadka u dhoofinaysa Soomaaliya ay la yimaadaan sharciyada ay qaadka ugu dhoofinayaan Soomaaliya ganacsadii laga waayay shatiga oo ku dhoofiyay qaadkiisana inuu mutayso doono ganaax lacageed iyo sidoo kale in suuqa laga saaro